wasiirka caafimaadka Soomaaliland wasiirka beeraha maamulka gobolka iyo marti sharaf kale oo ka socotay jaamacadda Camuud iyo maamulka cusbitaalka Al-Hayaat ee ku yaala magaalada Boorama ayaa waxa ay ka soo qayb galeen xaflad ballaaran oo loo sameeyay dhakhaatiir Kuweytiyaan oo iyagu ka yimiday dalkaasi Kuwait kuwaasi oo markaasi qalliino kala duwan si markaasi bilaash ugu qaban doona dad fara badan oo iyagu markaasi ay ku fulin doonaan cusbitaalka Al-Hayaat ugu horeyn halkaasi waxa madaxdii ka hadashay kamid ah gudoomiyaha gobolka Awdal oo ku soo dhaweeyay marti sharaftaasi ka kala socotay hay'adaha iyo qaybaha kala duwan ee dawladda wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland Dr. Xuseen Maxamed ayaa isaguna waxa uu ku sheegay howlaha noocan oo kale in ay qayb xal ka qaadanayaan koritaanka iyo kor u qaadida arrimaha caafimaadka iyada oo sidoo kale wasiirka beeruhu uu tilmaamay in ay aad u soo dhaweynayaan howlaha noocan oo kale ah isbitaalkan maanta meesha wanaagsan maraya waxa weeye Camuud Foundation dakatirada maanta inala joogta iyagu iskama imaadeen halkan hadaanan 4 jeer iyo 5 jeer lagu noqon waxaad ku yeelan jirtay waxa laga yaabaa in dhinacyo kale inaga soo gaarsiiyeen waxbarashada xagga kaalmada kale xagga agoomaha xagga caafimaadku uu yaraa runtii waxaan rajaynaynaa in marka albaab weyn oo isfurayno noqon doono oo ay noqon doonto mid joogto ah maanta dadkii Soomaaliyeed oo Soomaaliland ay Soomaaliland ka wada faa'iideysanaysa cid walba way Britoli nala joogin daaciya oo aad weyn la 250 qof ay dhageystaan oo Kuwait ka imanaya insha Allah waxaan rabnaa inaad ka faa'iideystaan isagana waxaan inagoo iga raaliya ilaahay inuu mahadcelino way laakiin midda kale aan leenahay waxa weeye inagu isku mahadcelino lacagta waan ku bakayl baan ku nahay ma hadda bakayl baan ku nahay inaan walaalehen aan muwaashir waxaan leenahay aynu mubaashara direct aid office-keega Kuwait office-keega Muqdisho iyo office-keega Hargeysa dhakhaatiirtan ka timid wadankaasi Kuwait oo ay markaasi soo dirtay hay'adda la yiraahdo direct aid ama al-awn al-mubashir ayaa iyagu dadka waxyaabaha ay u qabanayaan ay kamid tahay qaybaha qurxinta jajabka lafaha qalliino kala duwan iyo markaasi xanuunada guud oo ay markaas sameynayaan in ay eegaan hay'adda Camuud Foundation madaxda ka socotay oo iyagu markaasi marti ay u ahaayeen ayaa waxa ay sheegeen in ay aad iyo aad ugu faraxsan yihiin isla markaasina barnaamijyada noocan oo kale ay noqon doonaan kuwa hordhaca oo ay sameyn doonaan markaasi qaybo kale oo kamid ah sidii ay ugu qaban lahaayeen dadka hawlo caafimaad oo ay dadku u baahan yihiin